hadday markii aan sheekaysanayna waxaan ka hadlaynay qoraal hadday uu soo qoray ra'iisul wasaaraha sare Cumar Cabdirashiid waxa uu kaga hadlayay safar ay suuragal tahay in madaxweynaha Soomaaliya uu ku aado Addis Ababa oo kulan kula yeesho isaga iyo Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Eritrea cabsi badan oo arintaas ka muujiyo wuxuu yiraahdaa sukuuradka iyo arrimaha doorashada Soomaaliya xilligan inay arintan ku soo beegmato khatar ay keeni kartaa khatartu arkay sidee u aragtaaday runtii haddii sidaan uu ka akhriyay ra'iisul wasaaraha maaragtay warsaxaafada maaragtay Twitter-ka fariinta uu soo diray madaxweynahan runtii waqtigiisa xilkiisa waa dhamaaday marka maanta runtii inuu heshiisyo iyo arrimahaas oo kala aada maaha waxa ahayd inuu hadda isku dayo oo xoogiisa saaro wadankan sidee baa runtii doorasho loo aadi karaa oo xasiloonidiisa maaragtay loo ilaalin lahaa marka waa nasiib daro haddii xogta ma hayo laakiin ra'iisul wasaaraha waxaan u maleynayaa xogtu sheegaya maaragtay inay macna ku fadhido baan rajeynaya waa nasiib daro arintaasi arrimaha kale oo xukuumadan hadda waqtigeedii dhamaaday ee runtii aad iyo aad runtii dhaliisha ugu weyn ay leeyihiin ummadda Soomaaliyeed marka ay wadamo la heshiiyaan ama la hadlaan ma la hadlaan dadkooda oo ma sheegaan waxay ka soo hadleen wixii ay isku afgarteen wixii la rabay dib loogu noqdo nasiib daro waxa noqotay shirarkii qaarkood oo madaxweynuhu tagi jiray prime ministerka Ethiopia iyo madaxweynaha Eritrea baa u sheegi jiray wixii laga hadlay oo dhan jiray waxaas ka hadlay madaxweynaheeni hal kalmad kama soo sheegin markuu waddanka ku soo noqdo marka arrimahaasi waa arrimo anigu aan garan karo oo macquulo waa wax laga walwala waatay haddii ay runtii xaqiiqo tahay wax ka jira doctor aan dib ugu soo laabana marka ololaha aad ku jirtid oo aad hogaaminaysid xisbiga badbaado qaran maxaa hadda kugu dhaliyay inaad musharax madaxweyne noqoto runtii anigu laba qodob baa runtii ugu weyn waxaan anigu igu dhaliyay inaan musharax noqdo horta anigu ilaa 18 bilood baan dawladda ku jiray wadankana goboladiisa meelo badan baan tagay marka ilaaha ma hadii fursad wax horta u helay inaan ogaado xaaladda wadanka uu ku jiro iyo dhibaatooyinka jira iyo siday u kala culus yihiin taasi waxay siisay aragti gooniya bay siisay xukuumadda intaan ku jiray waxa kale oo saan hore kuugu sheegay Fuad hordhacaygii hore waxa jira arrimo adag oo masiiriya oo xukuumadii ilaa laga soo bilaabo dawladihii ku meel gaadhka ah oo xukuumadii Cabdullaahi Yuusuf Sheekh Shariif Xasan Sheekh iyo xukuumadda hadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrimo waxa jira dhammaantood ay ka warwareegaan oo go'aamo loona baahnaa wadankani haddii la rabo inuu hore u socdo arrimahaasina waa arrin u baahan qof daacada oo doonaya inuu gaadho go'aamadii wadankan institutionskii ama hay'adihii wadankan sharcigiisa iyo amnigiisa iyo dhinac kasta hore u dhigay ay ka mid tahay arrintan ku sheegay maxkamadda dastuuriga oo ka mid tahay dastuurkeeni oo wali qabyaa sidee dunida lagu arkay dastuur 8 sano ama 9 sano hadda maraya oo u baahan hadday ugu badato 6 ama sanad 6 bilood ama sanad lagu dhameyn karo marka waxaana jirin niyadii iyo waxaana jirin inay ka go'an tahay in arrimahan ay muhiim yihiin oo runta yihiin arrimaha kale oo muhiimka waxa ka mid ah arrimaha ku saabsan musuqmaasuqa anagu talooyinkan soo jeedinay career-kaygii hore anigu waxaan u shaqeyn jiray shirkaddan la yiraahdo Price Waterhouse oo New York ku taal halkaas aan ka bilaabo khabiir waxaan arrimaha hanti dhowrka iyo dhaqaale iyo xisaabtanka aan ka shaqeyn jiray waxa weeyaan nasiib darrada ugu weyn hay'adihii la rabay inay musuqa la dagaalamaan oo ay ka mid tahay xisaabiyaha guud hanti dhowrka guud iibsiga ama procurement-ka la dhaho meesha kontraagyada dhan laga bixiyo dakhli ururintan kula cashuur dhaafkan ku sheegay marka waxaan u baahanahay hay'adaha soo dhan inay noqdaan hay'ado sida bangiga dhaxo kala ah dawladda ka madax banaan laakiin dawladda kamida dadka loo magacaabayana dad karti iyo baarlamaankuna ma ogtay iyo ku ansixiyaan dadka hawsha qabanayana yihiin dad runtii iskood u madax banaan oo xitaa dawladda iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadii ay maaragtay sharciga ama wax maaragtay musuqa sameeyaan ku soo qaadi kara hay'adahaasi ma jiraan marka hay'adahaas oo dhan waxaan ku aaminsanay inay madax banaanadaan guddi la odhan jiray guddiga musuqmaasuqa la dagaalanka baarlamaanku baasgareeyay anti corruption commission la dhaho oo guddigaasna in la xoojiyo oo dad madax banaan oo ganacsati iyo Soomaali kalaan siyaasad iyo dawladda ku jirin ay markaana arrimihii wadanka ku saabsan musuq oo dhaay kala dagaalamaan arrimihii kale oo dhaqaalaha ah iyaguna muhiim ah oo u baahan in wax laga qabto marka arrimahaas oo dhan runtii waxay isugu soo shoobanaysaa hoggaan maaragtay go'aamo adag gaari kara
dadka Soomaaliyeed bay u taalaa qofkii u arkaan inuu awoodda ama kartida leeyahay. anigu inta kaliya Fuad ka oranaya waxa weeyaan saan hore kuugu sheegay xilka waxa la iga qaaday anigu dantii ummadda Soomaaliyeed iyo qarankan ka hormariyay dantii shakhsiga ahayd. marka waxaan laga yaabaa inay wax yar u ifin karto in haddii Ilaahay fursadda uu siiyo in aan runtii anigu go'aamadii loo baano wadankan maaragtay dantiisa fulinayay inaan gaari karo. qodobka ugu dambeeyo oo runtii aniga igu dhiirigeliyay ama inaan rabo inaan xilka ugu tartamo anigu waxaan ahaa dadkii Soomaaliya ugu nasiibka badnaa Fuad. waxaan tacliintu waagaan Soomaaliya dhigan jiray markii ugu fiicneed bay anigu waxaan ka baxay dugsigii Banaadir Secondary School iyo Media Centrale. tacliintu waxay ahayd tuwa dunida ugu wanaagsan. America markaan tagay iyo guulahan ka gaaro dhan waa tacliinta fiicneed oo dadka masaakiinta cashuurta looga qaado wax lagu soo baray. marka anigu muddo ku dhawood ilaa 28 sano oo kale aan ka soo shaqeynay bangiyada dunida shirkadaha Wall Street iyo New York ku yaala. marka anigu runtii waxaan ahay qof hadda bangiga dunida 15 sano ugu dambeeyaan ka shaqeynay. marka pension baan qaataa ama lacag maaragtay lagu siinayo noloshaada inta ka hadhay. marka anigu Ilaahay mahadi aniga qoyskayga nolosheeda inta ka hadhay alxamdulillah dhaqaale ahaan waa Ilaahay mahadi. marka anigu uma iman Soomaaliya uma soo shaqatin nin lacag ka doonaya meehi nin wax kale oo ka doonaya waxa aan rabaa wadankaas jiilalkii iga dambeeyay oo anigoo kala iyo fursadii heleen iyo tacliintii la siiyay fursadii haddaan laba statistics ku sheego wadankeena dadka primary school ama dugsiga hoose tiradooda waxa lagu qiyaasay ilaa 4 milyan baa lagu qiyaasay dadka maaragtay wadankeena jooga 3 milyan oo kamid dugsi ma tagaan. hadda marka aan ku celinaya waa numberadana waa statisticskii ama macluumaadkii bangiga dunida ka soo baxay. marka waxay ku cadeynaysaa wadan aayihiisa waxa dhisaa waxa weeyaan wax la dhaho human capital waa waxbarashada iyo maskaxda. qarnigan aan ku jirnaa waa qarnigii cilmiga weeyaan. wadamada wax soo saarka ugu waaweyn dunida cilmi bay ku soo saaraan. waxaa kamid ah wadamada la yiraahdo South Korea, Japan baa kamid ah, Taiwan baa kamid ah, marka Singapore baa kamid ah. marka inaku waxaan u baahanay inaan dadkeeni iyo maskaxdeeni aan wax barno oo cilmi iyo waxaas u galino. marka waxaas oo dhan dhaqaalihii la rabay in wax lagu baro in la soo saaro. marka maadaama anigu aqaano oo PhD-deeda iyo khabiir ku ah arrimaha dhaqaalaha aqaano meelahan aad iyo dadka dhalinyarada oo ama ha noqoto kuwa badda isku qaadayo oo maaragtay niyadjabku ku dhacay ama kuwan kale xaq jirka aadayo waxaan u arkaa arrimahaasi waa arrimahan wax ka aqaan arrimaha dhaqaalaha oo runtii. marka haddaan isku soo duuduubo arrimaha weeyaan anigu haddaan 4 sanadood qura noqoto wadanka jihari saxa ay ku dhacdo alxamdulillah maaragtay waxa weeyaan waxa aniga runtii aad iyo aad igu dhiirigelinay inaan hawshan galo waa taa weeyaan. sidaan ogsoonahay markii Soomaaliya laga hadlayo electionkeeda marka la aado way adag tahay dhaqaale la'aan in halkaas lagu gaaro oo sababtoo ah annaga oo ka khibrad qaadanayna doorashooyinkii la soo dhaafay halkee dhaqaale ka helaysaa inta ololaha lagu jiro. inkastoo ay tahay su'aal private laakiin dunida xitaa wadamada Mareykanka galbeedka Yurub dhaqaale la isku dhaafaa oo campaign-ka waa taqaanaa fundraising baa la isku dhaafaa. marka anagu runtii dhaqaalaha iyagu anagu waxaan qorshaha iyagu yaa runtii dad badan oo Soomaaliyeed oo runtii ganacsato ha noqoto ama ha noqoto Soomaali weyn kale anagu waxa aan furnay website kan aan furnay oo aan runtii badbaado qaran waa meel dadku runtii iskana diiwaan gelin karo oo mabaadiida xisbigayga u taagan yahay dadkii runtii markii arkaan oo iyo waxaan maaragtay waa hadaladayadii iyo fariimahan diranay waxaan aaminsanahay runtii ummadda Soomaaliyeed anagu inaan kalsooni iyaga ku qabno. markaana wixii donation oo online maaragtay ay sameynayaan dad kale badan baa jiro oo ganacsato Soomaaliyeed iyo dad kale badan oo doonaya in wadankan qof u daacado dhaqaalihiisa dhisi kara. marka taana rajo weyn baan ka qabnaa diidilo weyn baan ka qabnaa in dadka Soomaaliyeed dhaqaale gudihiisa ka imaanaya in aan runtii garab ka heli doono. markaana meelo wanaagsan baan hadda marana campaign-ku markuu si xoog u sii socdana aad baan ugu kalsoonahay. anagu ma doonano mana rabno wadan kale oo dana gooniyo dantooduna ka soo horjeeda wadankeena. anagu marnaba ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheeganaa inaanan xagga aadeynin. marka dadka Soomaaliyeedna u soo bandhigno runtii waxaan u qabanano oo jiilalkan soo socday iyo caruurahooda iyo wixii badbaadin lahaa. marka qorshaha iyagu ka weeyaan anaka Fuad.
aad u mahadsantahay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi oo ahaa wasiirkii hore ee kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ahna gudoomiyaha xisbiga badbaado qaran oo aan musharax madaxweynaha dalka Soomaaliya waa kaaga mahad celinayna waqtigaaga iyo wareysigaaga waliba aan ogso inaad safar tahay inaad waqtigaaga siisid Studio 5 TV noogu yimaad aad iyo aad ugu mahadsantahay aad iyo aad faad mahadsantahay walaalayaal fursadda ay siisay guud ahaan intaas aan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni Fuad iyo 5 TV tan iyo kulanti dambe nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh